السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا وما تنتهين مقال كانوا حربا إن ندي كل وذاقه قار كم إذا حبناها الريبابليكان كجرة لبضع أقل أو وربحين سرعة لجسين يدجال كأمريكان كل جرة إيران أي كلن كإسقى صباحي وحى إن الشاجين إن أجرته إن وحياب الله قرينا يوه إن إذا ماذا أمريكان كأيدونيان لوك إن كوجلان ودنك إيران haddaba qaar ka mid ah xubnaha Republicaanka ah oo arintaasi qoraal ahaan iyo cod ahaanba uga hadlay maxay tahay qorshaha Mareykanka ilaa ay haddan ay xubnaha Republicaanka ay leeyihiin aqalka cad iyo sidoo kale madaxweyne Trump nooma sheegayaan halka dagaalkan uu u socdo iyo sidoo kale lacagta ku baxaysa arrimahaasi waan idin la wadaagayaa iyo sidoo kalena madaxweyne Trump oo maanta aqalka cad golihiisa wasiirada kulan kula yeeshay isla markaana yiri إيران waxa ay naga baryayaan in aan heshiis la gaarno waxaana uu shaaca ka qaaday hadiyadii uu sheegay in Iiraan ay u soo dhiibtay Iiraan dhankeedu diyaar garow xoogan ayaa ka jira maadaama ilaa ay hadda 7,000 oo ciidamo Mareykan ay bariga dhexe ku sii socdaan xilli Mareykanku uu leeyahay wada hadal ayaa noo socda Iiraanna waxay u diyaar garoobaysaa leeyahay 1 milyan oo ciidan ayay diyaarisay iyagoo sidoo kalena jasiiradda la yiraahdo Qaraq Island oo shidaalka ugu badan ay ka dhoofiyaan la leeyahay miinooyin dadka iyo gawaarida waaweyn ba loogu talagalay ayay dhigayaan Israa'iil oo sheegtay inay dishay taliyihii ciidamada badda ee Iiraan dishay iyo madaxweyne Trump oo la leeyahay maalin kasta 2 daqiiqo oo Mareykanku howlgallada uu ka fulinayo Iiraan amaba ka badan ayaa la tusiyaa laakiin Iiraan dhibaatada ay geysanaysa lama tusiyo Iiraanna sidoo kale waxa ay diidaysaa inay wada xaajood ay la yeelato Steve Witkoff iyo waliba Jared Kushner oo wiilka qaba gabadha madaxweyne Trump labaduba waa ay diidayaan waxayna ka doorbidayaan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka arrimahaas oo idil ayaan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada tiitri Mareykanka wada hadal lama galayno oo isaga ayaa isla hadlaya dagaalkan waana la ku soo qaaday laakiin in uu joogsado inaga ayuu naga go'aa waana tiidiiday qodobadii 15 ahayd oo Mareykanku uu u soo bandhigay iyaguna 5 qodob soo bandhigay warkii shalay aan idin la wadaagay marka hadda waxa soo baxaysaba in warbixinta sirta ah ee la siiyo labada aqal ee Congress-ka Mareykanka xubnaha Republicana iyagoo careysan ay shalay ka soo baxeen waxay leeyihiin xubnahan warbixinta sirta ah oo nala siiyay waxa ay muujinaysaa in Mareykanku uu qorsheynayo in dagaal dhulka ah oo ciidamada Mareykan ay gudaha u galaan wadanka Iiraan waxaana xubnaha Republicaanka ay sheegeen warbixintan sirta oo shalay arbacadii la siiyay labada gudi ee ciidamada qalabka sida midka aqalka wakiilada iyo waliba aqalka sanadka in ay leeyihiin madaxweyne Trump iyo maamulkiisu waxa ay diyaarinayaan in weerar dhulka ay ku qaadaan wadankaasi Iiraan waxa hadda muuqata in 5,500 oo ciidan ah la toddobaadkii la soo dhaafay loo diray bariga dhexe 2 maalmood ka horna 1,500 ayaa lagu diray oo waliba ciidamada la yiraahdo the Army 82nd Airborne Division oo ah ciidamada diyaaradaha parachute-ka uga soo dega marka haddii wada hadal oo socdo maxay tahay sababta 7,000 oo ciidamo ah loogu dirayo hadda bariga dhexe marka arintaasi meeshaasi waxa ku jirto hadda xubnaha Republicaanka ay leeyihiin in uu Mareykanku qorsheynayo in dagaal dhulka uu ku qaado wadankaasi Iiraan marka arintan waxa ay leeyihiin xubnahan iyagoo careysan ay isaga soo baxeen waxa kamid ah Nancy Mace oo ka soo baxdayba warbixinta la siinay ee sirta iyadoo aysan dhamaanin iyadoo careysan ay kulanka isaga soo baxday waxayna leedahay waana la marin habaabiyay anaga Congress-ka iyo shacabka Mareykanka waa lana marin habaabiyay maxaa yeelay waxay leeyihiin Mareykanku amaba aqalka cad runta kama sheegaya dagaalkan iba ninka hogaaminayay gudiga ciidamada qalabka sida ee aqalka wakiilada oo Mike Rogers la yiraahdo ayaa waxa uu ka digay in aysan jawaabo sax ah ka helaynin wasaaradda gaashaandhigga iyo waliba aqalka cad waxaana uu sheegay in ay muuqanayso in hadda warbixinadan la siinayo aysan ahayn warbixino faahfaahsan isla markaana Mareykanku ujeedooyinka uu dagaalkan ka leeyahay iyo waliba lacagta ku baxaysa waxaana muuqanaysa in hadda Mareykanku uu doonayo in dagaal dhulka uu ku qaado in wadankaasi Iiraan xilli wali Iiraan ay diidan tahay in marinka Hormuz ay furto marka waxa la leeyahay
ujeedooyinka hadda Mareykanku uu damacsan yahay waa 3 ujeedo oo military ayuu doonayaa Mareykanku inuu fuliyo in jasiiradda Qaraq Island oo ah meesha shidaalka ugu badan Iran ay ka dhoofisay inuu la wareego iyo sidoo kalena uraniumkii bishii 6 ee sanadkii hore markii Mareykanku uu duqeeyay goobihii nuclearka burburka hoostiisa nuclearka ku jira oo Iran wali aysan gaarin in Mareykanku uu soo qaato iyo waliba regime change inay sameeyaan ilaa hadda oo dagaalku ku dhawaad bil uu socdo Mareykanku waa uu ku guuldareystay Israa'iilba in ay bedelaan hogaanka sare ee wadankaasi Iran waa ku guuldareysteen marka sida muuqanayso xubnahan Republicaanka ah warbixintii sirta ah oo la siinayo wasaaradda gaashaandhigga iyo aqalka cad ay siinayeen iyagoo careysan ay isaga soo baxeen waxa ayna leeyihiin sida muuqata Mareykanku waxa uu qorsheynayaa in dagaal dhulka ah uu ku qaado Iran dhankeeda waxa la leeyahay 1 milyan oo dagaalyahano oo ciidana ayay diyaariyeen jasiiradda Qaraq Island waxa ay sheegeen in hadda ay dhigayaan miinooyin loogu talagalay dadka iyo waliba taangiyada in hadda ay ku aasayaan marka iyaguna waa ay sii diyaar garoobayaan marka waxa uu leeyahay ninka hogaamiya guddiga ciidamada qalabka sida aqalka wakiilada Mike Rogers arrintan wuxuu yiri way naga careysiinaysaa maxaa yeelay faahfaahinadii aan u baahnayn halka dagaalkan uu ku socdo ilaa ay hadda wasaaradda gaashaandhigga iyo aqalka cad ma aynun ka helin sidoo kalena waxa jira in isaguna ninka sanadka ciidamada qalabka sida madax ka ah isagana Roger Wicker la yiraahdo Mississippi laga soo doorto uu leeyahay ma aragno waxyaabaha cadaynaya dagaalkan isaguna sidoo kale halka uu ku socdo marka sida muuqanaysa Mareykanka hadda waxa uu u diyaar garoobayaa in dagaal dhulka uu ku qaado Iran waa tii horey u tiri anaga 2 jeer ayaa wada hadal beena nala ku mashquuliyay mar kale nala kuma mashquulinayo haddaba Nancy Mace oo iyadoo careysan kulanka waliba warbixinta sirta ah la siinayay guddiga ciidamada qalabka sida isaga soo baxday ayaa barteeda X waxay ku soo qortay markii ay ka soo baxday kadib hadda ayaan waxaan ka soo baxay leedahay guddiga ciidamada qalabka sida aqalka wakiilada warbixintii sirta ee Iran la xiriirtay oo la siinayay laakiin aan ku celiyo ma taageeraya ayay tiri in ciidamo dhulka ah loo diro Iran arrintaasi waxay tiri xitaa haddii marar kale warbixinaha sirah nala siiyo markii ay soo baxday kadib ayadoo socoto wariye ayaa la hadlay hadalkan ayayna u sheegtay oo inaysan taageeraynin in ciidamo loo diro wadankaasi Iran oo Mareykan ay ka dagaalamaan kale mar kale waxay barteeda X Nancy Mace oo hadda gudoomiyaha gobolka South Carolina shalay isku soo sharaxday ay tiri sidoo kale in ciidamo loo diro wadankaasi Iran ciidamo Mareykana waxa ay tiri ma ahan go'aan si fudud aan ku qaadanayno hadda mana ku qasbanin xitaa hadii laga maarmaan ay tahay mana taageeray ay tiri mar kale marka sida muuqata Nancy Mace waxa ay leedahay ma taageerino maxaa yeelay warbixinta la siinayay iyadoo careysan ayay ka soo baxday xitaa kulankii uusan dhamaanin marka waxba jira oo dawladda Mareykanku ay qarinayso wada hadalkan Iran waxa uu muuqdaa hadda marka mid lagu mashquulinayo 7,000 oo ciidamo Mareykan ay ku sii jeedaan bariga dhexe ciidamadaasi maxay ka doonayaan bariga dhexe arrintaasi waa arrin muhiim ah oo hadda la doonayo in la ogaado dhinaca kale warbixinada soo baxaya waxa ay sheegayaan oo wargeysyadu ay qorayaan Mareykanka madaxweyne Trump waxa la leeyahay ilaa 28 February markii dagaalkan uu bilaabmay waxa la leeyahay maalin kasta waxa la tusiyaa 2 daqiiqo ama ka badan howlgalada ciidamada Mareykanku ay ku burburinayaan Iran ay ku burburinayaan marka waxa la tusayaa leeyahay saldhigga dhexe ee ciidamada Mareykanka oo mas'uul ka ah howlgaladan ayaa waxa uu tusayaa Iran qalabkeedii militariga oo la bartilmaameysanayo oo la burburinayo marka sidii ilmo yar ayaa loola dhaqmaya Iran dhibaatada ay geysanayso lama tusinayo laakiin iyaga dhibaatada loo geysanayo 2 daqiiqo ama ka badan ayaa subax kasta marka hurdada ka soo kaco oo xafiiskiisa yimaada loo shidaa oo la tusiya ayaa la leeyahay marka arrintaasina waxa ay tahay arrin kale oo la sheegaya dawladda Iran marka waxa ay diidaysaa in wada hadal ay la yeelato ergeyga dawladda Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff iyo sidoo kale Jared Kushner oo isaguna qaba gabadha madaxweyne Trump waxayna leeyihiin waxaan ka doorbidaynaa inaan wada xaajoodkaasi la yeelano madaxweyne ku xigeenka JD Vance marka sidaasi ayaa dawladda Iran ay leedahay oo waxay leedahay ma doonayna labadaasi mas'uul inaan wax wada hadala aan la yeelano dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa aqalka cad waxa uu maanta kulan kula yeeshay golahiisa wasiirada madaxweynuhu waxa uu ka hadlay dhowr arrimood marka hore waxa uu yiri Iran waxa ay doonaysaa oo inaga baryaysaa in aan heshiis la gaarno waxa uu yiri qaar kamid ah warbaahinada ayaa arkay sida Wall Street Journal oo warar been abuur ah sheegay oo dhahaya aniga ayaa doonaya Trump inaan heshiis gaarno marka waxa uu leeyahay aniga ma ahan iyaga ayaa waxay naga baryayaan inaan heshiis gaarno sidaas darteed waxa uu leeyahay heshiis ayay doonayaan Iran inay qaataan nacasiin ma ahan ayuu yiri waa dad aqli badan dhinaca wada xaajoodkana aad ayuu ugu
fiican yihiin waxa uu leeyahay dhinaca dagaalka kuma fiicno laakiin wadaxaajoodka aad ayay ugu fiican yihiin sidaas darteed wuxuu yidhi ma ogi inaan awoodi doono heshiis la gaarno amaba xitaa inaan doonayno inaan heshiis la gaarno Trump isaga ayaa kala hadlaya waxa uu leeyahay ma ogi inaan heshiis la gaari doono amaba aan doonayno inaan heshiis la gaarno laakiin waxa uu yidhi waxa ay ahayd inay heshiis qaataan 4 toddobaad ka hor intii uusan dagaalkan bilaaban ama 2 sano ka hor ama sidoo kalena intii markii aan xafiiska imaanayba in ay qaataan oo ay nabad qaataan ayay ahayd marka Trump oo aqalka cadgolihiisa wasiirada markii uu la shirayay hadalkaasi ka jeediyay wuxuu yiri waxa kale madaxweyne Trump waxa uu ka dhawaajiyay oo cadeeyay ama shaaca uu ka qaaday hadiyadii uu sheegay 2 maalmood ka hor inay Iran u soo dhiibtay waxa uu leeyahay waxaan hore idinku sheegay hadiyad ay Iran noo soo dhiibtay marka Steve Witkoff ayaa waxa uu ka codsanaya waxa uu leeyahay ma sheegi kara Steve waxa uu leeyahay madaxweyne wixii aad doonto waad dhihi kartaa Trump marka waxa uu leeyahay waxa ay yiraahdeen waxa aan doonaynaa si aad u ogaataan inaan dhabnahay Iran ayuu ka hadlayaa isla markaana aan dad adagnahay isla markaana aan dad jiranahay waxa aan doonaynaa inaan 8 doomood oo shidaal ah aan idii soo dhibno mar Trump wuxuu leeyahay waa doomo marna waa maraakiib tankeriska kuwa shidaalka qaada marka sidaa darteed waxa uu leeyahay 8 doomood oo waaweyn ayay noo soo dhiibeen 2 maalmood ka hor ayay arintaasi ahayd waxaana uu sheegay hadda ayaan soo diraynaa ay yiraahdeen 3 maalmood ka hor ayayna soo baxeen ayuu leeyahay marka waxa uu sheegay arintaasi been ayaan u maleynayay wax badan ma aanan ka fikirin laakiin warbaahinta ayaan arkay iyagoo dhahaya wax aan caadi ahayn ayaa dhacay 8 markab oo shidaal sida ayaa marinka Hormuz bartamihiisa hadda soo maraya oo shidaal ka buuxo markaas kadib ayaan waxa isri waryaa waxa ay sheegayaan waa barun isla markaana dadka saxda ah ayaan la hadlaynaa sidaas darteed waxa uu sheegay markaas kadib inaan waxaan ogaado leeyahay inaan dadka saxda ah aan la macaamilayno haddana way naga raali geliyeen hadal ayna yiraahdeen waxay yiraahdeen 2 kale ayaan dib uga soo dareynaa sidaas 10 doomood ama markab oo shidaal ah ayay noogu soo dhiibeen markaas kadib ayaa Steve Witkoff waxa uu ku leeyahay I hope waxaan rajaynayaa in aanan wada hadalka aanan carqaladaynin aad Iran kula jirtaan bal Trump inuu naga dhaadhiciyo ayuu rabaa Iran oo dagaal aan kula jirno ayaa hadda 8 markab amaba 10 markab oo shidaal ah noo soo rartay isla markaana noo soo dhiibtay bal hadalkiisa aqalka cad golaha wasiirada maanta markii uu la kulmayay uu ka jeediyay wax yar ila daawada We have very substantial talks going on with respect to Iran with the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? You can do anything you want to say. Thank you. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right, I hope I haven't screwed up your negotiations. But dhinaca kale shirka golaha wasiirada waxa ka hadlay Steve Witkoff oo isaguna Trump ergeyga bariga dhexe u qaabilsana wada hadaladan Iran Mareykanku uu la leeyahayna ku lug leh ay Pakistanna dhexdhexaadinayso walow Iran ay diidan tahay sidaan hore idinku sheegaba Steve Witkoff iyo waliba Jared Kushner oo wiilka sodonka uu yahay madaxweyne Trump waxa uu leeyahay 15 kaasi qodob ayaan u gudbinay Iran isla markaana sidoo kale Pakistan ayaan dhexdhexaadinayso haddii heshiiskan ay qaadato Iran way u fiican yahay heshiiskan Israa'iil iyo bariga dhexe iyo caalamkana waa u fiican yahay marka Steve Witkoff oo isaguna shirka golaha wasiirada 15 kaasi qodob in Mareykanku ay gudbiyeen arbacadii ka hadlayayna isaguna waxa uu yiri I can report to you today that we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator. And this has resulted in strong and positive messaging in talks, as you just indicated to the press. But these are sensitive diplomatic discussions, and you have directed us to maintain confidentiality on the specific terms and not negotiate
through the news media as others do. I can say this. We will see where things lead, and if we can convince Iran that this is the inflection point with no good alternatives for them, other than more death and destruction. We have strong signs that this is a possibility, and if a deal happens, it will be great for the country of Iran, for the entire region, and the world at large. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo